wardegdeg daawadayaal faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo ka socda magaalada Baardheere ee gobolka Gedo kaas oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland dagaalka oo xoogiisa wili uu socdo sidoo kalena la maqlayo hubka daradooriga u dhaca iyo sidoo kale daryanka rasaasta ay maqlayaan dadka shacabka ayaa wili ka socda degmadaasi Baardheere ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa isku hayay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay geysay mas'uuliyiin iyada ay magacaawday halka maamulka Jubbaland ay diideen mas'uuliyiintaas ay soo magacaawday dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan maamulka Baardheere ka ugu dambeyn sababay dagaalka saaka ilaa iyo haatanba ka socda degmada Baardheere ee gobolka Gedo dagaalka oo wili socda ayaa la soo sheegaya inay ku naf waayeen sidoo kalena ay ku dhinteen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa degmada Baardheere ee gobolka Gedo dhaawac dhimasho tirabeel ayaa la soo tabinaya sidoo kalena wili waxa la sheegaya in dagaalka uu ka socdo degmadaasi Baardheere sidoo kalena dadweynaha ku sugan halkaasi ay ilaa iyo xali isaaka bilaabeen inay ka qaxaan iyagoo ka baxsanaya rasaasta iyo sidoo kale dagaalka dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland u dhaxeeya ee ka socda degmadaasi Baardheere qasaaro dhimasho oo kala duwan ayaa wali la soo tabinaya mas'uuliyiinta ku dhintay waxa kamid ah Maxamed Ilyas Caagane oo kamid ah mas'uuliyiintii dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya ee u magacaawday maamulka degmada Baardheere wuxuuna ahaa madaxa arrimaha bulshada ee degmadaasi xaaladda ayaa wali kacsan waxaana dhinacyadu ay helayaan ciidamo gurmad ah taas oo ugu sii daraysa xiisadda ka taagan degmada Baardheere ee gobolka Gedo dagaalka ayaa ka dhashay muran sababay gacan ku haynta degmada oo isku hayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo maamulka soo horjeeda oo magacaabay degmadaasi Baardheere ee gobolka Gedo shalay ay ahayd markii maamulka Jubbaland ay sheegtay inay la wareegtay gacan ku haynta xarunta degmada Baardheere ee gobolka Gedo laakiin waxa saaka dib u qarxay dagaal culus oo dhexmaray daraawiishta maamulka Jubbaland iyo ciidamada ku sugan halkaasi waxa wali socda gurmadka ay ku dirsanayaan labada dhinac iyadoo degmada Baardheere ay noqotay xarun dagaal oo ay ku dagaalamayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkaasi Jubbaland iyadoo wali la soo tabinaya mas'uuliyiin halkaasi dhaawac uu ka soo gaaray dagaalkaasi wali socdo si kastaba ahaatee degmada Baardheere ayaa noqotay xarun dagaal oo ay ku dagaalamaan maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gobolka Gedo ayaa ahaa mid u weecatay siyaasadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo gacan ku haynta gobolkaasi isku hayaan maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya dagaalka haatan ka taagan degmada Baardheere ayaa dadka ay u cabsi qabaan in uu sidoo kalena ay ku fidaan degmooyinka gobolka Gedo oo muddooyinkii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya isku hayeen si kastaba ahaatee dagaalka ka socda Baardheere ayaa la ogeyn halka uu saldhigi doono iyo siyaasadda kacsan ee u dhaxaysa maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya